مسؤولين ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, badhasaabka gobolka Hawd, maayirka degmada Balli-Gubadle iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta si wada jir xadhiga uga jaray xarunta caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Baargo ee degmada Sayla ee gobolka Hawd. xaruntaasi caafimaad oo ay dhawaan hirgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. waxaana uu horay munaasabadaasi xadhiga jarka hadalla mahadnaqa ka jeediyay maamulka degmada Sayla ee gobolka Hawd iyo odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Baargo ee degmada Sayla ee gobolka Hawd. waxaan ku soo dhawaada degmada Sayla magaalada Baargo gobolka Hawd ku soo dhawaadaan ilaa mar labaad iyo mar saddexaadba. waa mahadsantihiin wasiirka caafimaadka iyo xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii xukuumaddii waxqabadka ah oo adeegii bulshada sida biyaha caafimaadka waxbarashada runtii gobolkeena aanu waxyaalo fara badan inay noo qabatay aanu arkayno. runtii deegaankan waxa looga baahnaa mashruuca keenteen waxa looga baahnaa MCH-ka keenteen wasiirka caafimaadka iyo wasiir ku-xigeenka iyo dhammaan xukuumadda waxa keenteen goor loo baahan yahay waxa keenteen goob loo baahan yahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa hadaan degmada Sayla iyo gobolka. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen isku duwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Hawd Axmed Cali Dariise, maayirka degmada Balli-Gubadle Maxamed Cabdi Maxamed Shiine, badhasaabka gobolka Hawd Eeleeye Xuseen Aadan, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Liibaan Yuusuf Cismaan, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Injineer Cabdulqaadir Iimaan Warsame iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi. mudane wasiir xaruntan hooyada iyo dhallaanka ee ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ka dhistay deegaankan waxa ka faa'iideysan doona 520 qoys oo deegaanada hoos degmooyinka yaryar hoos yimaada ayay ka kooban yihiin deegaamada halkan degan 530 qoys. mudane wasiir baahi aad iyo aad u fara badan baa loo qabay in deegaankan uu helo xarun hooyo iyo dhallaan oo caafimaad. maanta waxaad xariga ka jartay xaruntii wasaaradda horumarinta caafimaadku ay dhammaysay ee wixii qalab yaallay ee la heliyay la dhigay ayaad maanta xariga ka jartay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa ka wasaarad ahaan qaybta libaax ee aad ka qaadateen shaqaalaysiinta shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka jooga. qayb libaax baanu ka helnay wasiirintii aanu joognay imtixaanka intii gashay. waxay Baargo ka mid tahay dadka ugu magaalada ugu dadka badan leh ama ugu population ka badan leh. waxa ka samaysan 7 MCH baa ka samaysan oo kan baa kii toddobaad ku ah 4 degmo ee gobolka iyo 3 magaalo oo kamida magaalooyinka ugu tirada badan leh dadka degan ama bulshada ku dhaqan ay kamid tahay. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba. annaguna diyaar waxaan u nahay wixii halka baahiye ka yimaada hadii dawooyin tahay iyo haday noqoto wixii kale loo baahay baan diyaar u nahay inaan qaybteeda ka qayb qaadano insha Allah bismillaahi kariim. xaruntan hooyada iyo dhallaanka magaalada Baargo maanta xariga ka jiri doon ka jarnay. waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo hormoodka u yahay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka DG-ga iyo isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ay nagala joogaan. run ahaantii waa xarun aad qurux badan tayadeedu ay fiican tahay. insha Allah waxaan rajaynaynaa dee Roomano maalmo wala dhismin wixii ka dhimana inaga ay buuxsan doona oo iskugu tagi doona haddii la yiraahdo. kullay laba qodob baan ku soo gabagabeynayaayo anu waxaan ka tirsanaan jiray bahda caafimaadka. waxaan oranayaa hawlwadeenada caafimaadka ee xaruntan caafimaadku sidiisaba waa inuu qofku ku dhiiranaado shaqaaluhu waa inay habeen iyo maalin shaqeeyaan inuu diyaar noqdaa muhiima. waxaan in ilaahay u dulqaata u dhiga nuglaada midna waxaan oranayaa
odayaasha coqaasha iyo dadka deegaankan magaalada Baargo xarunta caafimaadka ee laynoo hirgeliyey haddii la yiraahdo waa inaad ilaashataan oo lixjeclo u yeelataan dhammaantiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin farxad bay runtii noo tahay in xaruntan caafimaad oo bilo ka hor aynu halkan dhagax dhigeedii u wada joognay in xadhigka jarkeedii iyo inay shaqayso aynu maanta u wada joogno runtii farxad weyn bay noo tahay xaruntii aynu maalintaa dhagax dhignay inaynu maanta xadhigka jarkeedii u joogno runtii waxa ay tahay guul weyn oo deegaankan iyo gobolkaba u soo hoyatay runtii sidii la sheegay deegaankani wuxuu ka mid yahay deegaanada gobolka Hawd ugu dadka badan baahi badanna u qabayn xaruntan caafimaad ee aan ahayn kaliya tamidaynu ugu talagalnay hooyada iyo dhalaanka ee ay noqon doonto xarun caafimaadka deegaanka oo dhan insha Allah wax ka qabata laakiin ujeedadeeda koobaad ay tahay inaynu ku daryeelno hooyada iyo dhalaanka laakiin adeegyada caafimaad ee ay dadka bulshada u baahan yihiin qof weyn iyo qof yariba insha Allah ta'ala inaga kaafi doonta ilaahay waa mahadle ilaahay isugu keenay inaynu maxayday xaruntan hooyada iyo dhalaanka aynu furno kana furno Baargo iyadoo uu nagu hogaaminayo wasiirka horumarinta caafimaadku ilaahay saa mahadle marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa dadweynaha nagu soo dhaweeyay rag iyo dumar baa caruur reer Baargo ee xaruntan caafimaad aynu furnay nagu soo dhaweey wadii mahadnaqaynaa dhismaha la idin dhisay ilaashada qalabka dhex yaala ilaaliya dhismaha ilaaliya hadday wax yar xumaadaan dhisa oo hagaajiya idinka la isaga kiin tagaya dawladdu way ku mahadsantay xukuumaddu way ku mahadsantay wasaaradda horumarinta caafimaadkuna way ku mahadsantay marka labaad dardaarankaygu waxa weeyaan dhalinta halkan ka shaqaynaysa ee maxayday idin shaqaynaysa caafimaadku soo diray iyagana ilaaliya idinka idin shaqaynaya marka shaqada idinku shaqaynayaan ku ixtiraama kuna ilaaliya ilaahay waa mahad leh ilaahay maanta isugu keenay dhismahan aynu joogno aynu xadhiga ka jarnay oo aan muddo dhaweyto jirin inuu maanta isagii oo dhammaaday oo qalabaysan oo dawadii taallo oo leyrkii ku xidhan yahay oo biyihii yaalliin inaynu maanta isugu nimaadno ilaahay baa mahad leh sida loo sheegay annagu ku faani mayno waxaanu idiin keennay waa wixiinnii waa cashuurtiinnii wixii aad sad u hesheen ee nasiib u hesheen ayaanu idiin keennay inkastoo dad badan wala sinaydeen haddana roobkuba dadka ma wada gaadho ma wada helo qaarna waa qadiyaa qaarna wuu u daa'aa kuwa uu qadiyeyna kuwa meesha uu ka daawin baa loo guura marka iyadoo aan wax badan lahaynin inaad ka qayb gashaan oo nasiibkiinu idin siiyo inaad xaruntan heshaan aad baa u nasiib badan tihiin annaguna insha allah waxaanu is leenahay shaqadii idinku waajibka ahayd ayaa ka soo baxdeen waxay la tahay cashuurta laga dhisay waxaa suurto geliyey nabadgelyada iyo ammaanka aynu haysanno ninna cashuur lagama qaadeen haddaan dowladnimo iyo kala dambayn iyo ammaan aanay jirin intaa waxaan kaga tegayaa hadalkii munaasabadda waxba nooguma kiin harsana aan ka ahayn inaannu sidii dadkaa shaqaalo ah ee halkaa ka shaqayn doonaa ay u sii joogi lahaayeen qaybtayada waxaanu ka geysan kari lahayn inaannu ka geysanno waxaan rajaynayaa dhowaan 5 qof ee ugu muhiimsan inaannu miisaaniyadda qaranka ka gudnayno oo inta ay helayaan shaqaaleynta dowladnimo inay miisaaniyadda ka helaan gunno inay ka helaan si ay ugu xasilaan oo ay u joogaan goobta 5taasu waa umuliso
waa ners oo qofka farmasiga jooga waa washmanka iyo qofka nadiifinaya nadiifsada maxamed jiciir axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balli Gubadle